الله أكبر الله أكبر وسلامنا دمان أمة الصومالية ملك استيشوكتو وحان كو سلامنا سلامة إسلامتا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صومالي ومسلم كنا مركي جهاد قليان جهاد الله أكبر بيكو قلان ماشي وماشي لقو جهاد وقالد لقو جهاد يي تاريخ دي أنا دي واحد بدن بالغا يا صومالي دو هدير حق بدن بي هيسا هل كان وافرات هل كاس وحرنتي وينيدو سلسلة taasi waa tii hadii laga daawad daar ilaalo meesha laga hogaamin jiray ama waxa isgaarsiinta xarunta dhammaan goobahani waa goobaha la yaqaan oo taariikhda sayidka ahayd 1920 ilaa 1900 dadka halkan joogaana waa dadkii agoomaha ahaado dadkii ku shahiiday gobonibadoonkii Soomaaliyeed ka haray waa la yaqaanaa naf iyo maalba dadkan heerarkii ay gaareen sidaa darteed waxaan leenahay Soomaaliya meel walba taariikh iyo history bay leedahay hadii la isboobo ama la isdhaco de dhacmeel ma tago taariikhda caanka ah oo dadkani iyo dalkani leeyahay waxa weeye waa madaxtooyadii ugu horeysay ee Soomaaliya ee 1920 ilaa 9 waa meesha Afrika ugu horeysay oo diyaarada lagu garaaco waa meesha ay ka jihaadka ugu horeysay ee Soomaaliya xurmadeeda ka bilaabatay waa magaalo madaxdii Soomaaliya ilaa iyo hadda waxaan leenahay marka waa soo dhaweynayna Soomaalida waa soo dhaweynayna waxaan ku soo dhaweynaynaa deegaanka Taleex iyo magaalo madaxdii Soomaaliya ee taariikhda leh waxaan kala soo dhaweynaynaa maamulka ka jira maanta Soomaaliya dhammaan dawladda dhexe oo madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Ali Khayre waxaan ku marti qaadaynaa magaalada Taleex inay yimaadaan gogol baa u taala waxaan leenahay kaalaya dalkan oo xaqiiqdiisa iyo taariikhdiisa xogogaal noqda waxaan kala ku martiqaadana meesha tani sidii maamulada loo sameeyay ama loo sameeyay dawladahan ka dambeeyay 1991 wax madaxay ma ayman halkan madaxweyne yimi Soomaaliya oo halkan yimi ma jiro Maxamed Siyaad Barra 1973 iyo 74 mar yimi madaxweyne ka horeeyay ma ayman waxaan leenahay madaxweynaha Puntland oo Maxamed Saciid Dani iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland iyana waxaan leenahay waa idinku martiqaadina waan idinku macsuumeynaa waa inaad xogogaal u noqotaan arrimaha ka jira anagu nin Soomaali kala goynaya oo laba magac u sameeyay ma itiraafsanin mana ihin Soomaali hal mid iyo hal calan baan u naqaanaa jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya la yiraahdaa waxa la wixii maamul goboleeda oo dhibaatooyin badan baa ka jira Soomaaliya ishayn baa ka jirta waxba la kala riixanayaa nabad gogolshii nabadda ee Soomaaliya lagu heshiisiin lahaa haday dawladda xamar tahay iyo haday maamul goboleedada tahay itiraafsan dawladda xamar halkan ay taala anaga odayaal ka noqonayna casumadda 1920 weeye dhammaan halkan aan ku heshiisiinayna gogolshii nabadda taala waa magaalo madaxda Soomaaliya ee taariikhdii ugu horeysay hal la yimaado hal laga soo qayb galo joojiya dhibaatooyinka Soomaaliya maanta dhibaato uma baahna nabad bay u baahan tahay dhibaato waa soo martay cid allaale cid dib ku haysa Soomaaliyana waxaan leenahay ha dhacdo ha baabaado ilaahay ciid ha ka dhigo cid allaale Soomaaliya ha midowdo ha israacdo taariikhda Soomaaliya ha soo baxdo ummadda Soomaaliyeed ilaahay ha soo jeediyo dawladaha iyo maamul goboleedka ilaahay ha soo jeediyo ilaahay ha heshiisiyo taariikhdooda iyo mabda'ooda iyo dadkooda ilaahay ha tuso dalkeenu waxa shanta Soomaaliya adduunka meel shanta wax oo adduunka laga isticmaalo dalkan ma aha meel kale oo laga helaa ma jirto waa badii waa xoolihii waa beertii waa macdankii waa hadir shiidaalkii shanta nooc oo adduunka laga isticmaalo taariikh intaasi u dhantahay ma jirto Soomaaliya hubka dhiga joojiya cadaawadda barwaaqadiina nooga nin walba walaalka barko soo isu kaalaya waxaan leenahay cid kasta oo Soomaaliya ama xilfi gaar ka wada ama dhibaato ku haysa waa joojiya halkan aynu joognaa waxa weeye xaruntii sayidka Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa gurigii laga xukumi jiray daraawiishta laga xukumi jiray waxa weeye qalcadii weyneed waxay ka kooban tahay 3 wareeg oo iska daba dhisan si aanay gaalada kufaarta aanay madaafiicdeedu ugu dhicin dumisa la dumiyeyna waxa weeye miina lagu dumiyey madaafiici ma dumin oo kufaarku ma dumin
وحوية تضبطي فبراير 1920 تضبطي فبراير maalintii duqaynta badan ee ay ku soconaysay daraawiishta ee diyaaradaha ay soo rideen weeye maalinkan maanta boqol guuradeedii weeye waxa weeye waa marka ay sayidku galabta uu ka ambabaxay ee cadowgu qabsaday weeye midabka saha lahaadee ama caddaan ha ahaado ama madow ha ahaadee cadowgu qabsaday waayo ma ay wadan gaala badani waddanka ma iman waxa caawinayay madow bay ahaayeen ninkay doonaba ha ahaade waxa markaa sidaa awgeed xafladan aynu isugu nimi waa xafladda waxaynu xusaynaa taariikhda iyo baroordiiqdii sababtu waxa weeye meel deganaa magaalada tanayn dadkii deganaa ilaa 826 baa maalintaa gudaheeda ku shahiiday oo miino iyo diyaaradii u shahiiday ilaa 360 waa dagaalkaa waa ku dhinteen taleex waa ku dhinteen meel kale oo sidaa ay ugu shahiideen oo aan gobolka soo lahayn ma jirin sidaa awgeed waxaynu xusaynaa boqol guurada gobonnimo doonkii sayid maxamed cabdulla xasan cid kaloo sheegan karta oo ama qabiil ku sheegan karta ama Soomaali wuu yahay oo sharaftii Soomaaliyeed oo dhan buu sitaa laakiin marka Soomaaliya laga hadlayo taleex uun baa taariikhda sheegan karta dadkeedina ku dhamaad waa meeshii Soomaalinimo dawladnimo ay ka bilaabantay madaxnimo Soomaaliyeed ay ka bilaabantay weeye sayid maxamed sheekh cabdulle uu ka bilaabay iyo ciidankiisii uu xoogga ahaayoo la shaqaynayay waa meesha muddo badan baa meesha tan Soomaalinimo laga shaqaynayay dabeedna dad badan oo ajnabi ah oo madow iyo caddaan ba leh sidoo horeba uga shaqeeyay yaa weeraray meel Soomaali joogto oo dayuurad lagu weeraro oo lagu laayo dadka waa taleex meel kale maaha taleex weeye meesha dadka lagu laayay meesha hadii weerarka lagu weeraray Soomaalida meesha sayidka iyo ciidamadiisa lagu la dagaalamay ciidamadu ciidan u gaar ma ahayn sayidka qura ciidamada Soomaaliyeed bay ahaayeen Soomaalinimo ku shaqaynaya iyo muslimnimo ku shaqaynaya bay ahaayeen taariikhdaasi taa weeye halkan hadda aynu joognaa waxa weeye hoolkii silsiladeed meeshii ciidamadu fadhiyi jireen meeshii lagu kala qaybin jiray xaruntii lambar 1 weeye xudurteedii weeye halka aan ku tiirsanahay waxa weeye meeshii sayidku markuu ciidamadu kala baxayaan ama uu la dardaarmayo ama meeshii kasab hal la qabtee waa meeshii uu oran jiray la isugu iman jiray weeye ka bixin jiray shirka alcaanka ka bixin jiray weeye marka waxa weeye aan waxaan tixgelinaynaa Soomaali oo dhan waa ka dhaxaysa meesha tani laakiin in meel kale loo turjumiyo maaha looma baahna nin walba waa ogyahay waxaan imika dawladaha adduun weynahana waa la wadi ogtiyo waa la ogyahay haddana aniga hadlayaa waxaan ahay daraawiishta anigoo nin Soomaali ah oo reer taleex oo daraawiisha misna reerkii dhalay baan ahay aniga Sheekh Cabdiraxmaan sayidkayna walaashiisa ay dhashay ilaa bariga kobtaataan joogay aan ku noolaa anaga iyo dad kale oo dadkaan walaahno Soomaaliyeed كانوا يدين شيء هذا وقود هذا الله يلا لفتوا قارب ورقة كارجنا waxa weeye Soomaaliya ha noolaato hamidowdo hawalaalow adawgeedu ha jabo assalaamu calaykum warahmatullahi wa kabaxay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan u gudbinaynaa salaan diiran oo salaanta islaamka ah assalaamu calaykum warahmatullahi wa barakaatuh bacda salaan halkan waxaan ku xusaynaa taariikhdii Soomaaliyeed iyo sharaftii Soomaaliyeed oo ugu horeysay halgan gobonnimo doon waa meeshii ay ka bilaabatay taariikhda Soomaaliyeed waa meeshii sayid maxamed cabdulla xasan uu ku xoreynayay Soomaaliya sida awgeed halkan aanu taagannahay waa xeradii ciidamada sayidku fadhiyi jiray qalcadii taleex iyadoo 4 qaybood ahayd 4 ceel bay leedahay
4 meelood oo kaydku u yaallo bay leedahay waa meesha laga sheekeynayo uu lahaa dhagaxa ma lafsani madfaca ma ceshe maadhow midka buuranii keen markuu ku dhisayey ku ilgoonayay waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inay tahay sharaftii Soomaaliya meesha ay ka bilaabatay waa Soomaaliya oo dhan ma aha magaceeduna waa taleex baanu joognaa oo ku xusaynaa taariikhdii Soomaaliya inta waxaan uga sii gudbaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaanu leenahay ilaahay maslaxad khayr qabta ha u keeno dawladda Soomaaliya maxamed Cabdilaahi Farmaajo xasan cali khayre oo ra'iisul wasaaraha waxaanu leenahay iyagana waanu salaamaynaa calankaasa la hoos sarsanayaa ummadda wixii diidan oo dawladnimada diidan waxaanu leenahay ilaahay ha soo hadeeyo Soomaaliyana ha isku tashato ha iska dayso colaadda sokeeye iyo qurunka ha ka baxdo dawladnimada Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya iyo dadkooda la qaybsaday 5 qaybood laga dhigay waa inay Soomaaliya ku fikirto oo ay ku tashato waxaanu leenahay Soomaaliya ha noqoto si kale oo ay Soomaaliya wax ku noqon kartaa ma jirto maamulada ka jira dalka oo markii burbur dhacay oo dawladdii dhexe ay burburtay la sameeyay waxaanu leenahay dawladda dhexe ha ku xidhmeen khilaafka laga saaro sidii rag hore sheegayna waxaanu rabnaa meesha tan waa meel taariikh weyn leh waxaanu rabnaa inaanu gogosha dhigno nabdeed inaanu ku soo dhaweyno Soomaaliya oo dhan inaanu ku casuuno madaxweynaha maanta talinaya iyo ra'iisul wasaarihiisa inaanu ummadda Soomaaliyeed oo dhan isugu yeedhno oo gogol u dhigno oo heshiisiino ayaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay aanuna ugu baaqaynaa inay yimaadaan aanu gogosha u dhigno ilaahay Soomaaliya ha siiyo narsi wanaagsan heshiis wanaagsan caafimaad ay isu caafimaaddo ilaahay baan uga baryanaa rabbiga isaga siin kare waana soo dhaweynaynaa anagu Soomaaliya taariikhdu waa la og yahay oo meeshan gobonnimo doonku ka bilowdo aanu saaka taaganahay magaceeda waa wada garanaysaa waa la og yahay maaha taariikh qarsoon waa magaalada Taleex waxa la sheegayaa dadka Soomaalida ahi khilaafyo badan baa ku jiro qaar baa wax iska sheegayo waxay leeyihiin annaga joogna meeshii hadii alla ku rooyahay taariikhda lahayd sida muuqata waad aragtaan xeradii ciidamada sida ay iyo dhibaatadii ku dhacday iyo duqayntii maantana waa maalintii sayidku ka baxay maalinta gelinkeeda dambe cadowguna uu kala wareegay ummadda badanna lagu xasuuqay dawladda Ingiriiska ayaana arinta ka mas'uulahayd cid kasta ha wadato laakiin dawladda Ingiriiska ayaa duqaynta iyo dhibta geysatay magdhowgii iyo dhibaatadii naga gaadhay iyo dadka iyagii iyo duunyada iyo magaaladayadii lagu baabiyay magdhow baanu ka rabnaa haddii iyo waxqabad baanu ka rabnaa haddii taa la waayo Ingiriiska waanu dacweyn doonaa ilaahay baanu ka dacweynaynaa ummadda adduunka joogto dhanna waanu ka dacweynaynaa haddii Ingiriis arinta taxgelin waayo oo magdhowgeedii uu bixin waayo arinta sidaas baanu maanta ku xusaynaa Soomaaliya oo dhan baa taariikhda tan gobonnimada tan sharaf u tahay Soomaaliya oo dhan baa leh cid gaarihi ma leh sayidka markii halkan uu joogay ciidamada haystay Soomaali bay ahaayeen reer Taleex qura ma ahayn saldhig baanu ahayn laakiin Soomaaliya oo dhan baa ku jirtay Soomaaliya oo dhan baa halganka ku jirtay sida taariikhda ku qoran sidaasaanu arinta u xusaynaa una soo dhaweynaynaa Soomaaliya oo dhan Soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha gobonnimadeeda ha garato ilaahay ha garansiiyo war isu kaalayaan tashanne war Soomaaliya isu kaalayaan tashanne war dawladda mucaaradka ka daaye war dabka inoo baxay mucaaradka ka daaye wixii mucaaraday war yaan dhibaato dambe iyo xasuuq iyo tol isdila iyo qabiilooyin islaaya iyo dad sokeeya ah oo maalin walba xasuuqay war waxa laga daayo Soomaaliya ha laga daayaanu leenahay saas baanu ku taliyeena ilaahayna waa ka baryeena assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa maalintii duqaynta ay ka dhacday Taleex sayidkuna uu ka baxay 7 Febraayo 1920kii oo xusideedii aan xuseynay halkan aynu hadeer taaganahay waxa weeye haddaan xoogaa sii dayar taariikheeyo wixii aan ka hayo waa gurigii madaxtooyada oo ahaa uu deganaa sayid maxamed cabdullaahi xasan bartan hadeer aynu taaganahay falaad baa la yiraahdaa
waa meeshii uu lahaa markuu dhisayey ninkii fakadow fariingeeyo falaad fasalkeeda sheeg macnihii markuu saa lahaa waxa weeyaan waa quruxdii ay u dhisnayd haddana burburkaa ka muuqda waa tii loo geystay u geystay ingiriiskii iyo wixii cagaha ka xelanayay asal ahaan taariikh ahaan marka laga sheekeeyo sayidku wuxuu ahaa nin darwiish halgamaa ah oo aan ahayn qabiil oo aan ahayn maamul gaara laakiin Soomaali weyn oo dhan ayuu ka turjumayay ayuuna u ahaa hormuud taariikhdana ma aha in la khaldo in meelaha lagaga hadlo taariikh haladana ma aha sayidkii waxa weeye waa Soomaali oo dhan meel ay joogto dalka oo dhan hormuud ka ahaa waa maamulkii ama dawladdu u horeysay oo ka dhalata oo cadawga gumaystaha iska fujisa buu ahaa taariikhdiisa sayidku saasay cidna ma aha inay gooni u sheegato taado annagaa lahayn taariikhda annagaa lahayn waa Soomaali weyn oo dhan haliyay Soomaaliyeed buu ahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana maxamuud cali wasoo sayidku ku metelaya waa kan waad xornimadii Soomaaliya iyo gobonnimadii Soomaaliya laga dhaliyay waxaanu taaganahay madaxtooyadii Soomaaliyeed ee kacaankii labaad ee Soomaaliya halgankii sayid maxamed cabdulla xasan baanu taaganahay waad aragtaan waxa ka muuqda waa burburkii iyo duqayntii uu geystay dawladda Ingiriisku cadawgii uu geystay gumaystaha ahaa xabaalaha nagu dhow waa dhammaan dadkii duqaynta lagu laayay iyo kuwa kale oo fara badan oo aan sawir ka soo qaadi doono tagi doono hadii Ilaahay idmo waxa weeye maantana waa 7 bisha February waa duqayntii ugu faraha badneed ee Taleex ku dhacday maalintay ku dhacday sayidkuna wuxuu ka baxay galabnimadii casarka ayuu Taleex ka baxay isaga oo 3 nin ay la socdaan oo faraskiisii iyo faras gaar oo aan cid fuushanayn oo haddii faraska sayidku uu xaraamo lagu bedelayay sayidka daraawiistiina waa ka daba yaacday isla casarnimada waxa qabsaday Taleex gumaystihii Ingiriiska ayaa dib markii sayidku uga baxay qabsaday taariikhdaasi sidaas ku caddahay waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha midowdo taariikhdan waxa iska leh Soomaaliya oo dhan baa iska leh gaar ahaanna waxa u leh degmada Taleex waxaan ku horeynayaa gabayga qalcadda Taleex quseeya ma badna waa iska 4 kalmadood kuwa calanka Soomaaliyeed ciidamada u taagay taariikhda caanka kuwii ku cokanaysiiyay colkii koofooday iyo kuwii cunay cadaan oo dhan ceelkii Taleex iyo silsilad maqal codkoodii Taleex wayna joognaa silsiladana waa tan ciidankii daraawasheedna waa kan isirkiisii way joogaan afartaas waa afartii kalmadood Taleex quseeyay gabaygii Soomaali weyn quseeyay burburkeedii maadaama inta silsilada sidaa burbursan tahay Soomaaliyana way burbursan tahay waa hooyada Soomaaliya wakaa ifkii Soomaaliya halka ka muuqda sidaa darteed gabay aan anigu mariyay oo fara badan baan halka tirinaya si uu taariikhda u galo ummadda Soomaaliyeedna u gaaro waa taan daadii gabayga dhigay deelkii maansada waa taan danaha baadiyo iyo xoolo daaqsaday caawana anoo darin dhigto duguriyo seexday ayuunbaa munaan la igu daray meelihii dumay markaasaan intaan daaha rogay soo dangiigsaday markaasaan diyaarsaday inaan dood idiin furo bacdigii Ilaah kugu dawaa lagu dawoobaa Soomaaliya rag iyo dumar isma dhaantaan dalkii hooyo iyo aabe baa dakhar u yeesheen daclada dabkaad kaga rideen daaqal ku tagi darandoori baad ugu rideen duhur dharaareen dundumooyin baad kaga dhigteen daariye xamar waa lama degaan beerihii dalaga weynaa burcadii la soo daawan jiray waa dukaan maran dabaqyadii Hargeysa la waa dahabkii hoosiil subax baad wixii dunida yildaankii galiseen subax baad dugaag soconay iyo daani noqoteen subax baad dayaca iibsateen kama diqootaan subax baad ninkii door ahaa daabcad galiseen subax baad hablaha tiiwacnay duurka xuluseen subax baad dekadihii dhigteen dabiya baasiin diyaarada fadhiistay la waa doonyo soo gala halkii deebcsan baa filin ku duuba gaarigii duqooba rarku daco la ciira doontii xumaataa badda ay dalaq tiraahdaa awrkii diboodaa dhurwaa bohol ku doxda nin shisheeye wuxuu doonayaa inaad dulowdaan war miyaan duqoowiya lahayn inama soo daalay war miyaan dabkii aashideen damise loo haynin war miyaan colaaddaa wateen nabad la doonayn inamadii waa la helay waa khayre iyo farmaajo dawladduna wayna soo gaadhaysaa madaxweynaha Soomaaliyana waxaanu ku taageeraynaa inuu soo gaaro madaxda Taleex